Peter Tabiji wuxuu isu taagay isbedelka waana tusaale caalami ah oo u nool waxbarashada iyo sareedada erayadiisa tugan deeqsinimadiisa iyo habnololeedkiisa sahlan ayaa u soo jiiday inuu kasbado qalbiyada adduunweynaha isagoo ka helaya martiqaad iyo casuumaad laga soo bilaabo aqalka cad ee Mareykanka ilaa Vaticanka jidkii uu ku taagnaa kaasoo ugu dambeyntii lagu magacaabay mid ka mid ah haldoorada Afrika ugu saameynta badan sanadkii 2019 wuxuu ka soo bilowdaa Nakuru oo Kenya ku taala maanta dukaamada iyo gaadiidyada dhaxmara wadooyinka waxa ku xardhan boorar ay ku taageerayaan shaqadiisa farxadooda iyo reereynta ay ka muujinayaan ku guuleysiga abaalmarinta macalinka ugu fiican dunida sanad ka hor intaanu ku guuleysan bilada wuxuu si lamid ah barayaasha kale macalinka ahaa dugsiga sare ee Kiriko isagoo ka dhigay maadada sayniska inta ugu badan ardaydiisa waxay ka soo jeedaan qoysas sabool ah kuwa badan oo ka mid ahna waxay socdaalaan fogaan aad u dheer si ay yimaadaan iskuulada macallin walba tani waxay ku qaaday Peter inuu sameeyo wax ka qaayo weyn kaliya inay damaanad u helaan helida buugaagta muqarrarada ee iskuulada lagu dhigo balse wuxuu sameeyay xirfad iyo hal-abuur ay isaga filnaan karaan nolosha markay dhameeyaan waxbarashada ka macallin ahaan waxaan safka hore uga jiraa waxbaridda waxaan arkaa halganka iyo ka go'naanshiyaha daayar badan oo caadifada aqooneed hibada xilkasnimada iyo aaminaada ku jirta aanay jirin wax lala meel dhigo dhalinyarada Afrika inta badan hadda noloshooda kama haystaan filashada hooseysa hankoodu uu sareeyaa doonis adag iyo dabacsanaan nololeed dhexdeeda tayada iyo waxqabadka Peter waxa garowsaday adduunweynaha samata bixiye iyo suureeye mustaqbalka kuwa ayaanka hooseeya caruurtooda waxaan intaa u dheer inuu dakhligiisa bilaha ah 80% ugu yaboohay ama ugu deeqay si ugu caawiyo saboolka deegaanka kula nool korna ugu soo qaado heerkooda nololeed ee ay ku jiraan dunida ka gees barayaashu kama helaan faa'iido dhaqaale shaqada culus ay u hayaan bulshooyinkooda qaar badan ayaa ku shaqeeyay mushaar iyo gunooyin la'aan waana iska caadi inaysan mararka qaar qadarintii iyo abaalkii ay lahaayeen aanayna ka helin ardaydooda ama waalidiinta dhalay laakiin Peter Tabiji wuxuu dunida tusay in macallimiintu dunida bedeli karaan oo ay sameey karaan bedel xataa haddii aanay helin mudnaantii ay u qalmeen macallin walba oo Afrika waxa uu furmaya bog cusub oo hor leh abaalmarinta leysiyana kama dhigna inay aqoonsanayso balse waxay ka dhigan tahay dhalinyarada Afrika halkaana waxaan kaliya u joognaa guushii ay gaareen ardayda ayuu yiri Tabiji hadiyadani waxay siinaysaa fursad waxayna dunida u sheegaysaa in wax walba ay sameey karaan ayuu si raaciyay kadib markii uu ka qaaday 9 lamayaal oo halgan ugu jiray hanashada abaalmarinta ururka Farkey Foundation ayaa Tabiji ku aqoonsaday kartida iyo dadaalka uu ku bixiyay soo nooleynta rajada daayarta danta yar ee gobolkiisa ku nool waana 38 jir